maxaa loogu haystaa lamaanahan sawiradan ay iska qaadeen daawada intaana kula wadaagin muuqaalka waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like garayso sidoo kalena share ah ku samayso si uu u gaaro saaxiibadeena sawiradii arooskooda kadib ee lamaanahan hindida ah ee dhawaan isguursaday ayaa si weyn u baahay waxaana sii faafay dadka qaar ee baraha bulshada ku caaya dadka kale waxa ay hadda BBC-da u sheegay inaysan sawiradooda ka deji doonin bogagooda taasna ay fariin u noqonayso kuwa isku dayaya inay cabsi geliyaan waxa ay sawiradooda ka muuqda Lakshmi iyo Hrishi Karita oo qosliya laabta isgelinaya mararka qaarna isciirsanaya waxa ay muuqaalada iyo sawirada isaga soo qaadeen beer laga soo saaro caleenta shaaxa waxayna isla xirnaayeen hal maro oo xariir oo cad lamaanahan oo xaflad yar oo arooskooda dhigtay bilo ka hor waxa ay sheegay inay go'aansadeen inay sawir iska soo qaadaan markay u dhamaatay bishii malabka ujeedkooduna waxa ay ahayd in ay xasuus fiican u sameeyaan xafladoodii arooskoodii aan si fiican u dhicin arooskeenu wuxuu ahaa mid qoysaska ay qorsheeyeen balse annaga waan iska helnay sida Lakshmi ay BBC-da u sheegtay qadka taleefankeeda ku sugan gurigeeda ku yaala Ergalakulama ee koonfurta gobolka Kerala qoysaskan ayaa diyaariyay munaasabad aan isku baranay sanadkii la soo dhaafay kadib waan isjeclaanay waana ogolaanay inaan isguursano ayuu yiri Hrishi waxa uu u shaqeeyaa shirkad isgaarsiina sidoo kale Lakshmi waxa ay dhawaan dhamaysay shahaadada koobaad ee jaamacadda waxa ayna ku taqasustay injineeriyadda korontada lamaanahan waxa ay qorsheysteen aroos ay ku bixiyaan qarash badan kaas oo dhici lahaa bishii Abriil balse xanuunka koronaha ayaa saameeyay dhamaadkii bishii Maarso waxa Hindiya ka bilowday bandow iyo xayiraad looga hortagay xanuunka corona sidoo kalena waxa la mamnuucay in dad badan ay meel isugu yimaadaan si loo hakiyo xanuunka inuu faafo balse markii ay xayiraadda la qafiifiyay waxa la ogolaaday in xaflada aroos dad yar ah oo ay ka qayb galaan la qabsan karo Hrishi iyo Lakshmi waxa ay ka faa'iideysteen fursadii dadka yarka loo ogolaaday inay isku yimaadaan wadanka Hindiya waqti badan iskama aysan lumin waxay isku guursadeen 16 September 2018 xaflad yar oo lagu qabtay macbad ku yaala Kolama wuxuu ahaa guur farxad iyo madadaalo leh balse waxa xafladda ka soo qayb galay qoysas iyo asxaabta oo kaliya booliiska waxay inoo ogolaadeen 50 qof oo kaliya waxaana la saaray xayiraado badan si ay u casriyeeyaan xiriirkooda waxa ay lamaanahan go'aansadeen in iska qaadaan sawirro xasuus leh sida caadada ah lamaanayaasha isku guursada gobolka Kerala iyo qaybo badan oo Hindiya kamid ah waxa ay lamaanayaasha iska qaadaan sawirro la qurxiyay si ay arooskooda ugu muujiyaan dunida qaybaheeda kale maadaama Hrishi uu doonay in sawirada arooska kadib ay noqdaan kuwo xambaarsan galgacayl iyo ka duwanaansho dadka kala aroosada ay dhigtaan wuxuu baaritaan ku sameeyay internetka wuxuuna la yimid fikradii ugu wanaagsaneed oo noqotay mid uu magac ku helo ninka sawirada ka qaaday oo asxaab ay yihiin oo lagu magacaabo Aqiil wuxuu BBC-da u sheegay in dhowr saacadood ay ku qaadatay in sawirada uu qurxiyo dhibaatada waxay bilaabatay dhowr maalmood kadib markii Aqiil uu sawirada dhigay boggiisa Facebook dadka aflagaadeynaya waxa ay sawirada ku tilmaameen kuwa fool xumo ah edeb darro iyo ceeb qaar waxa ay ku tilmaameen qaawanaan iyo inay ku fiicnaan lahaayeen xayisiiska cinjirka la gashtay xilliga galmada ee gondobka qaarna waxa ay ku taliyeen inay qol isla galaan waxa la kulanay 2 maalmood oo nacayb ah iyo cay ayay tiri Lakshmi dadka qaar waxay dhahayeen qaawnida ayaad muujinaysaan waxa ayna weydiinayaan in dhar kale aan hoos ka xirannahay waxa ay nagu eedeeyeen inaan raadinayno dareenka dadka iyo caanimo xadgudubyada badankood waxa loo geysanayay iyada iyo sida Lakshmi sheegtay waxay igu ahayd arrin aad u xun aniga ay xadgudub iyo cayda ugu badan igu dhacayeen waxay ii sheegay in aflaanta ashax darada ah aan jilo jirkeyga aan ceeb ayay ku tilmaameen ayay tiri dadkan ugu xadgudbay waxa kamid ah dumar badan waxayna heleen sawiradeedii hore aan caadiga ahaa ee aanan ismarin wax meeg aba waxa ayna bilaabay inay isbarbar dhigaan iyagoo oranaya eeg siday u fool xumeyd iyo hadda siday u eg tahay balse maalmo kadib waxa bilowday dad kale oo taageeraya lamaanahan waxayna ugu yeereen taageerida Karti Hikis kuwa badan oo kamid ah waxa ay sawirada ku tilmaameen kuwa cajiib ah oo qurux badan waxayna kula taliyeen inay iska indhatiraan fariimaha nacaybka iyo xasadka mid kamid ah haweenka taageerada u muujiya waxay sheegtay inay hadda ka hor aragtay lamaano lagu ceebeeyay inay gacanta isqabsadeen waxayna lamaanahan Karti Hikis u sheegtay inay farxadooda muujiyaan ayna iska dhagatiraan kuwa caynaya ma garanayno kuwa nagu xadgudbaya iyo kuwa na taageeraya balse waan ku faraxsanahay ayay tiri lamaanahan sidoo kale waxay caqabad kala kulmeen xubnaha qoysaskeeda ee xaq jirka ah kuwooda diidanaa sawirada
markii hore waalidiinteenna waxa ay ku noqotay fajac, balse waxaan u sharaxnay sababta aan sidaa u samaynay, wayna nagu taageereen. balse kuwo badan oo qaraabada ka mid ah waxay nagu eedeeyeen inaan u dhaqmayno sidii reer galbeedka, ayay tiri Lakshmi. wayna soo waceen waxayna i weydiiyeen baahida nagu qasabtay arrintan, waxayna nagu yiraahdeen ma ilowdeen dhaqankeenii soo jireenka ahaa. kuwa badan waxa ay weydiiyeen in sawirada ay ka tiraan Facebooka, waxaana Lakshmi iyo Hurishi laga saaray qaybta WhatsApp-ka ee qoyska oo ku wada xiriiro, balse waxa ay ku adkeysteen inay tahay go'aan ay gaareen, aysan sawirada ka saari doonin baraha bulshada. haddii aan aqbalno waxa ay u qaadanayaan inaan ogolaanay in dambi aan galnay, ayay tiri Lakshmi, balse waxaa qalad ah maana samaynin, xitaa dhar ayaan hoosta ka xirnayn, ayay tiri. daba daawade waxaad fariin u reebtaa gabdhaha islaamka ah siiba kuweena Soomaaliyeed markay aroosyada dhiganayaan qaabka isticmaalaan. sidoo kale waxaa meesha aan ka marnayn kuwa ku jira aaladda TikTok oo aan ninba qabin oo 24 saac iswalaaqaya, oo aaladda TikTok ay u noqotay meel ay waqtigooda ugu badan ay ku bixiyaan, ku jira ayagoo aan la aroosin, xitaa iska dhaaf aroos, iska dhaaf cawradoodii iyo diinta islaamka ku xadgudbaya. bal fariin u reeb.